sida awood afeed awood maskaxeed awood jir ahaaneed turxan li'i ku maansooday tamar iyo awood sheegtay xaqa toos u garabsiiyey tacadiga ka dheeraaday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دواد أصحابتي waa mar kale walaalkiin Axmed Xirsi isla YouTube ka diga daawanaysaan waa Axmed Xirsi sidoo kale haddaad beeshkayga daawanaysidna waa isla Axmed Xirsi oo haddii aad hore la sii joogto sharaf ay tahay oo kulli horeyba waad u aragtay waxaan soo gudbiyo haddii aad hadda igu cusub tahayna walaal igu soo biir oo YouTube ka subscribe isaan Facebook-na follow isaan soo dhaweyn kadib halka waxaan ku soo bandhigaa inta badan talooyin aragtidayda oo bulshada kula wadaago maasooyin gaagaaban iyo wixii la halmaala isla maanta sidoo kale waxaan soo qadimi doonaa ama soo bandhigi doonaa maansa gaaban sida hordhacaad ka soo aragtay waxaan isla taagi doonaa in waxyaabo iftiimiyo sida caadada ahayd ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa adduunkan qof kasta markuu imanayay wuxuu la soo yimiday talent u gaara ama awood u gaara sida awood afeed awood maskaxeed awood jir ahaaneed iyo awoodo kale kala duwan waxaad arkaysaa nin wariye ah oo afkiisa ku ciilbaxaya sidoo kale waxaad arkaysaa nin fanaan ah oo isaguna doobtiisa handhaho ama ku ciilbaxaya codkiisa macaan ama gabadhba isla sidoo kale waxaad arkaysaa nin qoraa ah oo isagu ku shaqaysanaya ama risqiisa ku ridanayo maskaxdiisa iyo qalinkiisa wuxuu qoro isla sidoo kale waxaad arkaysaa nin orda oo orod ku tartama oo lugihiisa risqiisa ku ridanaya way badan yihiin dadka bini aadanka giftiyaashu ilaahay soo siiyey iyo awooduhu ilaahay soo siiyey haddaba maanta topic-aygu wuxuu ka hadlayaa isla topic-aas in awood qofku uu la soo dhashay awoodiisana uu ku tartamo uu ku meel maro waxba yaan hordhaca kugu badine maansada waxay ku bilaaban doontaa sida tan kulli waan isdul taagi doonaa oo iftiiminayaan ka bixin doonaa waxay ku bilaaban doontaa ku tashaday awoodayda awoodii uu la soo dhashay qofkaas uu ilaahay soo siiyey waa hibadii ilaahay siiyey ayuu sheegaya tana gooni lay siiyey hadduu wariye ahaa awoodii wariyenimo haddii uu ahaa qof bulshada u adeegi karo oo management ku fiican sidaan dhahnay ama maareynta ku fiican tii la siiyey tii abwaannimo tii hal abuurnimo tii fanaannimo ku tashaday awoodayda tala saartay kay oomay nimbatiisu waa gaare tanaa gooni lay siiyey turxan li'i ku maansooday tamar iyo awood sheegtay xaqa toos u garabsiiyey tacadiga ka dheeraaday tamar yaraha garab siiyey taakuleeyey ruux baahan anoo tiisa dhowraayo tartan ruux la geli waayey taaj qaar korka u saaray guushaadu waa taame tallaabada ha soo gaabin anoo waa nin kula taliyey anoo tayda qarinaya markay toban tidhaa aniga tiinaa saxan ku taageeray tartiib ugu saxoo kaabay haddaba qofkii talentigan lahaa ee ilaahay hibooyinkan uu soo siiyey haddaba dadka siduu ula dhaqmi lahaa iyo inuu una u awood sheegan ayay sheekadu ka hadlaysaa daba wuxuu ku leeyahay ku tashaday awoodayda waxaan ku horumarayaa oon ku meel gaadhayaa awoodda ilaahay soo siiyey tala saartay kay uumay allihii uumay ee awoodan ama hibadan isoo siiyeyna isaga ayaan ku tashanayaa inaan ku meel gaadho anoo isticmaalaya awooddii ama hibadii ilaahay soo siiyey nimbatiisu waa gaare ilaahay qof kastiba hibo ayuu soo siiyey u gaar oo san hore u soo sheegnay hibooyin kala duwan ayuu leeyahay tanaa gooni lay siiyey tan aan kula hor fadhiyo ayaa gooni la ii siiyey oo hadduu wariyey wuxuu ku leeyahay tanaa gooni la ii siiyey haddii uu fanaan yahay wuxuu ku leeyahay hibadan ayaa gooni la ii siiyey waa isaga oo ku dhex socda awoodiisa bulshada isaga oo na ka haybaysaneen turxan li'i ku maansooday marka maansada lagama wado hal abuurkii ama abwaankii lagama wado nacab farshaxankii uu hawshan uu qabanayay يعني سيدا ugu qurux badan u qabtay turxan li'i xumaan la'aan hawsheedii ku qabtay hadaan wariye ahay anigoo cidna dhaleecaynin cidna xumaynin cidna aflagaadaynin hawsheedii qabtay
haddii aan ahay nin maamulo ah maamulkii sidii loogu baahnaa uga soo baxay anoona cidna dhaleecaynin cidna xumaynin cidna wuxuu dhimayn sidii ugu qurux badnaay wax loo qabanayo u qabtay waayo waa talantigaygii haddaan orodyahan ahay sidoo kale haddii aan fanaan ahay haddii aan ahay qof public speaker haddaan ahay intaba qaabkii loogu talagalay u gutay turxan li'i ku maansooday tamar iyo awood sheegtay markii wanaaga laga hadlayo waxa loo baahan yahay inaad sida ugu qurux badan wax loo qabtay inaad tustid baa loo baahan yahay awoodaada inaad meesha wanaaga aad soo dhigtid tamar iyo awood sheegtay dhinaca wanaaga markii laga hadlayo ama qurxinta ama wanaajinta waxa lagu igmaday markay tahay turxan li'i ku maansooday sida ugu qurux badan u qabtay turxan li'i ku maansooday tamar iyo awood sheegtay xaqa toos u garab siiyay haddaba waxa lagaga baahan yahay hibada lagu soo siiyay inaad ugu adeegin xumaanta inaad ugu adeegin inaad cid ku dhaleecayn inaad cid ku aflagaadeen inaad cid ku xaqirin ba loo baahan yahay talantiga aad leedahay inaad xaqa ku garab siisay markasta talanti afeed talanti maskaxeed talanti jir ahaaneed waxa aad qurux leedahay ee Ilaahay ku soo siiyay ee hiba ah inaad ugu adeegsid xaqa aanad cidna ku aflagaadeen cidna aad ku dhaleecayn ama dulmiga aad ugu adeegin تعدي كديراد حق توس وقربسي تعدي كديراد مركب وناقل لأجيو وحلقة ربا إن أود هذا تستد أو هديت تمر إيه أود شاكتي وناقة معمول وناقة عد وناقة أرض وناقة وحي وناقة أردن بوحلقة ربا إن أود هذا تستد مركب حق لأجنا إن تقرب جوكستد أو وناقي لهي كسوسي حق تقرب جوكستد تعدي كديراد هذا بقف كلهم ماشي تالنتيجها كل جوجو أو حاجة أن تالنتيجه لهين إن هذا سجنا كو دفور تابتي معهن إن أنا كافي يعني أنا كهو ناكسن سجنا واحد بهي إن التعدي أتكفوا وتوقف كتالنتيجنا لهين إسلامش هذا كلا شقينا تمريرها تاجري قفكم حو تمرير يهي مركا أذوق هل كان هبوا ولا ده هي وحي يهي وحي إلهي كوفو دي السجنا أيت هي مال وسوى أود وكولا جوجو كاتمر يري اسكو ميد متيهين دادالك وبحنايا أدقو كوكا يربط بحنا سا هدنا وحي بات كغا هرينيسا هدبا تمر يراها تاغيري waxa laga baa qofka inaad taageertid inaad madaxa aad jabisid oo tartan aad la gashay maahan waxa loo baahan inaad taakuleysid oo kula jaan qaadi karo tamar yaraha taageeray taakuleeyay ruux baahan adi hibadii baad leedahay qofkana ma lahan isagu rafaaday adigna horey baad markii wixii uga baxday isaga waxa laga beenaa taakuleysid oo soo kaxaysid taakuleeyay ruux baahan anoo tiisa dhowraayo tartan ruux la gali waaye hadii aan tartamo oon dhaho aniga ayaa ka fiican waxa dhici karta qofkan inaad niyada ka jabisid hadaba adoo tiisa dhowrayo waxa lagaga baahan yahay inaad soo taakuleysid aad ka fogaatid tartankii ana ka fiicantay inaad ka fogaatid anoo tiisa dhowraayo tartan ruux la gali waayay hadaan tartamo cidi ilama tartami karto adigoo oo arkaya sidaas inaanad qofkii kale niyada ka jabin taaj qaar korka u saaray dad waa inaad taajka hibadaadu waa inay dad ka dhex muuqataa bulshada taaj qaar korka u saaray guushaadu waa taame waa kii tamartayra wayna u dhiirigelis waad gaaraysaa guushu way ku dhowdahay dadaal wayna niyada u soo dhistid taaj qaar korka u saaray guushaadu waa taame talaabada ha soo gaabin anoo waanin kula taliya adoo saa ku waaninaya inuu guusha gaarayo inay dhowdahay inuu niyad jabin adigoo saa u sheegaya waa inaad soo kaxaysaa qofkii aan talentiga lahayn haddaad adigu meesha hibad iyo talent aad u leedahay talentigu nooc doonuu noqon karaa anoo tayda qarinayo anoo taydii lahayn aniga sidan kaaga fiican oo bulshada markay wanaaga tahay waa tusi kartaa laakiin markay istusnimada tahay ka badbadiska tahay أنا سيدنا يا أنا محي يا أنا هبلية مركي نوع عتاهي وأنا قريسة مركي اللي ليها أنا جا سيدنا أو محي دوكي عرك كان مركي اللي ليها وأنا هبدا قريسة هدي هبلا هذا وين قفك هبدا صحدا أنا تهيدا قرينا أيو مركي طبعا ترى أنا جا سيدنا أنا جا ريه بلا أنا جا فنان كي يا أنا جا محي مركي أنا اعتماده وحلا أنا وعمل الشيطان كيسيل الشيء مركي اللي
anoo tayda qarinaya markay toban tiraa aniga markay bulshadu ay dadku qaarkood ay ku dhaxleeyeen aniga sidan aniga maxay aniga reer Shabeelle aniga sidan ana fiican markay dadku leeyihiin hadaad hibo dhaba leedahay inaad adu qarisaa hibadaada meelaha kale in laga arko ma fiicno laakiin meelaha wanaaga markay tahay wayna awoodaada aad tustid oo wanaaga aad u noqotid example aad u noqotid ayda qarinaya markay toban tiraa aniga tiina saxan ku taageera warininka saxan waliba taageerada oo kaliya ma ahan tartiib ugu saxo kaabay waliba waxa laga baahan inaad toosisid sidoo halku rabo iyo qaabku isagu doonayo isagu uu qaato waayo adigu waxaad hibo u leedahay cid kaama qaadi karto waa hibi iyo habeenkeed oo dambayntiina waxa ku soo gabagabaynayaa aad ayad u mahadsan tahay daawashada fiidiyogan haddii aad aragtid wax dhaliila ah ama meelo aan gafayo ama meelo aan qaldayo haday jiraan waa ila soo wadaagi kartaa xasaan iskaga saxo wixii dhaliil ah waan aqbali karaa oo waxa ay tahay toosin iyo taageero ay tahay inaan dib iskugu laabano aniga iska soo saxo fikirkayguna oo qaldanaan karaa san hore u soo dhahay oo wanaagsanaan karaa wax waan isku khilaafi karnaa muhiim ma aha saxnaantiisu aad ayaad u mahadsantihiin ugu dambeyntii daawashada fiidiyogan hana ilaawina inaad ii saartaan subscribe way dhiirigelinaya ay tahay inaan aniguna horay aan dab uga sii qaato والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.